danahooda un bay ka arkayeen oo ka wada hadlayeen laakiin tan ummad Soomaaliyeed kama hadlayn danahoodiina way iska dhex arki waayeen laakiin sidii ummad Soomaaliyeed danaheeda lagaga hadlayay ma yahay qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha qaxootiga Dadaab ayaa muujiyay walaac iyo niyad-jab ay ka qabaan natiijada uu ku soo dhamaaday shirkii magaalada Kismaayo ku dhaxmaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe shirkan oo habeen iyo maalintii xigtay ka socday Kismaayo oo looga hadlayay sidii xal waara looga heli lahaa khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya labada dhinac ayaa soo idlaaday iyada oo aan wax isfaham ah laga gaarin arrimaha muranka uu ka taagan yahay shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan Dadaab ayaa sheegay inay rajeynayeen in kulanka uu horseedi doona heshiis iyo tanaasul lagu dhameeyo khilaafka muddada dheer soo jiitamayay balse hadda ay dareemayaan rajabeel iyo niyad-jab kadib markii shirka lagu kala tagay iyada oo aan wax isfagarad ah la gaarin taasoo u muuqata in rajadii tanaasulka heshiiska iyo midnimada ay wiiqantay meesha waxa ka dhacay wax yar ma garanaysaa qaab daran buu ahaa shalay markii idaacad laga hadlayay farxad baan ku soo dhaweynay haddana yar xoogaa kala tagtaag baa ka dhacay meeshii oo lagu kala tagay marka waxaan leeyahay Soomaali maskaxda ha shaqayso dib hal iskugu noqdo Soomaaliya maanta ninkii $3,000 qaata ee mushaar ah isdib guriga ka karaysanaya Soomaaliya waa la soo cileeyay ciidanka mushaar la'aan ah wax walba dhan baa khariban marka Soomaaliya dib isku noqdan leena wallahi inuu aragtidaas aad baan ugu xunahay hadaan ummadda Soomaaliyeed hadaan dadweynaha Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed aad baa ugu xuntahay waayo looma baahneen waxa la rabay labada dhinac inay isku wada tanaasul inay sameeyaan ummadda Soomaaliyeed ay u turaan ay nabad ay noqdaan wadanka nabad ay ku soo dabaalaan haddii dadkii siyaasiyiintii dadkii ummadda Soomaaliyeed u maqneed haddii ay shir isku imaadeen oo ay ku kala tageen waa ayaan daro anigu waxaan ka aaminsanahay aragtidayda shirkaasi shir danahooda un bay ka arkayeen oo ka wada hadlayeen laakiin tan ummad Soomaaliyeed kama hadlayn danahoodiina way iska dhex arki waayeen laakiin sidii ummad Soomaaliyeed danaheeda lagaga hadlayay ma yahay saasaan anigu arkaan waxaan u arkaa shir danaystayaal isu yimiinay ahaayeen danahoodana iska dhex arki waayeen dhibaato weyn baa u iman karta waayo waa dadka danaystayaasha ee aan midna tanaasuli karin marka labada madaxweyne waxa ugu baaqi lahaa inay meel dhex iskugu imaadaan danta ummadda Soomaaliyeedna ay ka shaqeeyaan ismaamul walba Soomaaliya ka dhisanna waxa dhihi lahaa dawladdiina taageera waxgaradka nala hadlay ayaa ku baaqay in labada madaxweyne ay dib u bilaabaan wada hadallada ayna muujiyaan mas'uuliyad qaran si loo gaaro heshiis siyaasadeed oo dan u ah gudaha shacabka Soomaaliyeed waxaan tala siin lahaa inayna kala caajisin nabad inta aan laga caajisin tanaasul ay xaq iyo xaqaba sameeyaan waliba waxaan xaataraa xagga tanaasulka xooga inuu ilaahay maadaama uu madaxweynaha dalka yahay tanaasulyo badan laga rabo waxaan ugu baaqayaa inay maartay heshiiyaan oo isku soo noqdaan oo shir labaad qabsadaan oo mid saddexaad qabsadaan annagu haddaan nahay Soomaalida qaxootiyada markii la yiraahdo shir baa meel hebla ka dhacayo oo madax baa ku shirayso oo magaranaysaa nabadgelyo laga hadlayaa oo in la isku soo dhawaada laga hadlayaa aad baan u niyad kacaynaa dalka anaga dadka anaga baan rabnaa inaan ku noqono marka waxaa na dhibaysa oo ka naxaynaa shirkii uu fashilmay oo waa lagu kala tagay oo heshiis ma dhicin baan na dhibaysa wallahi niyo shalay maxaan ku raahdaa ididiila naga muuqatay oo waxaan islahayn mar haddii madaxweynihii yimid waa nin oday reer weyneed tanaasul buu samayn doonaa wax badan baan iska soo bedelay baan islahayn rajo fiican baan qabnay reen fiican baan qabnay waxaan islahayn wax badan baa hagaagi doono ummadan go'doonsan ee cunaqabateynta la saaray ee dhibaataysan ee isbitaal la'aanta iyo dhaqaale la'aanta ku dhacday ee eraborada laga xiray baajeedku furmi doonaa at least yaan islahayn waxa weeye hadda waxaan dareemaynaa calool waxay ku bukotay lagu daaweeyo oo mas'uuliyad sheeganaya dadkaasu ku maartay madaxweyne noqdo iyo ku baarlamaan noqdo iyo ku wasiir noqdaba waa dad markii la wada doortay gidigood kitaab maraya kitaabkiina hadhow way ka been sheegayaan marka waxaan u arkaa horta dhibaatadana haysa inta badan ee ummadda Soomaaliyeed haysa inay tahay kitaabka ee la marayo ee haddana laga been sheegayo marka waxaan codsanaynaa Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed iyo Deni iyo Axmed mucaaradkii iyo dadka mucaaradka ah dawladda mucaaradka ku ah wuxuu dhan in la heshiiyo oo Puntland la tago madaxweyne Axmed Maxamed Islaam iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay maqlayaan maslaxadda shacabka inay ka taliyaan baan kula talin lahaa aakhirana waa la weydiini xilkan maanta ay hayaan ummaday u hayaan
dhiiggan daadanayana aakhiro waa la weydiinay ilaahayna ha uga baqaan maslaxadoodana ha ka hormariyaan midda muslimiinta midda Soomaalida midda ummadda ha ka hormariyaan shirka Kismaayo ayaa la filayay inuu noqdo mid lagu dhisa kalsooni siyaasadeed iyo wada shaqayn cusub oo u dhaxaysa dawladda federaalka iyo maamul goboleedka Jubbaland balse natiijada shirka uu ku soo dhamaaday ayaa dhalisay su'aalo badan oo ku saabsan mustaqbalka wada hadallada labada dhinac dadka Soomaaliyeed ee ku sugan xeryaha qaxootiga Dadaab ayaa ku baaqay in علماء الدينka iyo waxgaradka ay door muuqda ka qaataan dadaalada lagu doonayo in lagu dhameeyo khilaafka siyaasadeed ee ka jira dalka si fursad loo siiyo nabadda iyo dib u dhiska khilaafka labada dhinac ayaa si weyn u saameeyay shacabka Jubbaland oo tan iyo markii ay labada madaxweyne isqabteen waayay mashaariicda gobolka loogu talagalay iyo si guud xuquuqdii ay Jubbaland ku lahayd dawladda dhexe aadan Cabdullaahi Murtile warbaahinta RTN Dadaab mustaqbal wanaagsan u samee ubadkaaga oo geyso Cambridge International School oo bixiyo waxbarasho tayo leh oo caalami ah primary iyo secondary. The simplest feature of organic compound is alkanes. So one of the organic compounds we have alkanes. Cambridge International School waxa uu bixiyaa manhajka UK ee IGCSE oo adduunka oo dhan laga aqoonsan yahay una diyaarinayo ardayda inay galaan jaamacadaha heerka sare ee adduunka iyo mustaqbal wanaagsan. Cambridge International School waxa uu sahlayaa ardayda in si fudud ay ugu gudbaan O-level iyo A-level examka. Cambridge International School qaybtiisa manhajka Canadianka waxa uu ardayda u diyaarinayaa inay galaan jaamacadaha Canada iyo America. sidoo kale xifdinta quraanka, caqiidada iyo luqadda Carabiga ayaa ardayda lagu barbaarinayaa. Cambridge International School online meel kastoo adduunka aad ka joogto duruusta waad ka qaadan kartaa. Cambridge International School waxa uu leeyahay garoomo ciyaaro iyo jirdhiska oo qayb ka ah barbaarinta ubadka. Cambridge International School waxa uu ku sameynayaa qiimo dhibis 50%. Cambridge International School waxa uu ku yaalaa degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Kaxda qiimaha nolosha iyo kirada guryaha waa raqiis. 5 qol oo sar ah waxaad ku helaysaa wax ka yar 200 bishii. fadlan naga soo wac WhatsApp ka shaashada kaaga muuqda.